dowladda federaalka Soomaaliya goordhabeed soo saartay degniin culus oo ku socoto dalalka Djibouti iyo Kenya oo ay ku eedeynayso xadgudubyo iyo faragelin ka dhan ah arrimaha gudaha dalka. Siyahayaha wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Dube oo warbaahinta dowladda ka soo muuqday ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya aysan marnaba aqbaleynin in la farageliyo go'aamada ka soo baxaya Midowga Afrika ee ku aadan xaaladda dalka. taasi oo uu sheegay inay wadaan wadamada Djibouti iyo Kenya. Dowladda waxay ka digaysaa xogaha xasaasiga ah ee hordhaca ah xaqiijinta in dowladaha Kenya iyo Djibouti ay ka dhex wadaan olole diblomaasiyadeed oo xubnaha guddiga amniga iyo nabadda Afrika kaga dhaadhicinayaan soo jeedinta qodobada ay rabaan in lagu daro qoraalka la doonayo in uu soo saaro guddiga amniga iyo nabadda Midowga Afrika ayuu yiri. qaraarkii golaha shacabka uu muddo kororsiga ugu sameeyay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya kaasi oo ugu sii daray xaysadii doorashada. Dube ayaa wuxuu sheegay in madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu Midowga Afrika u gudbiyay in iyada oo la meel marinayo qaraarka golaha shacabka la dhameeyay khilaafka doorashada ee ka dhex taagnaa dhinacyada isku haya siyaasadda dalka. Soomaaliya waxay ka digaysaa wax kasta oo taabanaya gobonimada iyo madaxbannaanida siyaasadeed ee jamhuuriyadda waxayna ka soo horjeedaa in dowladaha xubnaha ka ah guddiga Soomaaliya kala dhaxayso xurguf siyaasadeed ay guddiga amniga iyo nabadda Midowga Afrika u adeegsadaan ku xadgudubka gobonimada iyo madaxbannaanida Soomaaliya. Soomaaliya waxay si cad u sheegaysaa inaysan cidna ka aqbaleynin ku xadgudubka arrimaha gudaha Soomaaliya taasi oo ka soo horjeedo xiriirkii iyo sharcigii lagu ururka Midowga Afrika oo ay Soomaaliya qayb ka lahayd aas-aaskiisa iyo tabagelintiisa. Siyahayaha wasiirka warfaafinta ayaa ugu dambeyn sheegay in ay dowladda Soomaaliya ay soo dhaweynayso cid kasta oo gacan ka siinayso sida dalka ay uga dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah iyada oo la ixtiraamayo madaxbannaanida dalka. waa sida uu hadalkiisa u dhigay.